بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago waxyaalo ku saabsan nabadda ama qiimaheeda ama iyadu waxay tahay iyo sida looga arko dunida looga arko iyo waxyaalo ku saabsan iyadana heerka aan ka joogno nabadda dunida annagu Soomaaliyeed aan nahay marka tafsiirka nabadda marka la tafsiirayo tafasiirtu waa kala duwan yihiin intayna meel kale u gudbin Soomaalida ina Cabdillah Xasan oo kale markuu sifeynayay nabadda waxa uu yiri hadhac iyo qabow lala hurdiyo had iyo raaxa leh hawo iyo hilow gacalo hurud nabdoon baa leh hanfariir in loo kala ordiyo hunuf colaad baa leh wuxuu sifeynayay marka nabad colaaduna inay leedahay in la kala yaaqo in la kala ufoodo in dadku ay kala qaxaan kala amaano baxaan nabaduna inay leedahay deganaan iyo hurdo iyo haybad inay leedahay nabadda guud ahaan waa shay qaali ah weeye oo dadka qaarkood ay yiraahdaan nabaddu waxay goysaa price kasta ama qiimo kasta oo insaanku bixin karo bay goysaa ka marka laga tago nabad maxaa la yiraahdaa marka la yiraahdo nabadda tafasiirteeda sida waxay la wadaagtaa cilmigan social science-ka bay la wadaagtaa yani definition-ka ama qeexidda nabaddu oo ah waa waxaan bir lagu goyn karin oo qof gaar ah u xadidi karin in nabadda la qeexaana dee marka xaaladda marka lagu jiro way keenaysaa waxay keenaysaa aragtida dadku ay kala qabaan مثلا dadka islaamka si u fasiraan yahuudu si u fasirtaa kristaanku si u fasiraan hinduusku si buddhistu si u fasiraan dadkan diin lahayn si u fasiraan qoloba angal gaar ay ka soo gashaa marka yani waxaan ka wada tafasiir gaar ah oo hadeertan lagu xadidi karo nabaddu marka ma yani qof ku dhaaran kara ma jiro ama qof ku dhaadan kara ma uu jiro nabaddu waa saas iyo saas iyo saas laakiin waxay leedahay waxyaalo yani marka nabadda laga hadlayo ay tahay iyagii in laga hadlayo waxaa kamid ah cadaaladda waxaa kamid ah deganaanta waxaa kamid ah xalinta khilaafaadka waxaa kamid ah nolosha caadiga ah waxaa kamid ah la dagaalanka poverty-ga iyo faqriga waxaa lamid ah waxyaalo fara badan baa gudaheeda ku jira sidaa daraaddeed nabaddu waxaa la oran karaa waa in la xaliyo khilaafaadka iyo kala duwanaanta yani keenaysa yani dadku inay kala irdhoobaan oo disconnection ama kala go' uu ku dhaco dadka xalinteeda oo loo xalinayo dariiq nabada oo noloshana kor loogu qaadayo intaas weeyaan waxa weeyaan maareynta isku dhacyada ama ismaandhaafyada gacanka hadallada iskhilaafka keenaya dadku inay kala go'aan oo kala uugaan ku dhaco oo loo xaliyo hab yani hab nabada loo xaliyo iyadoo maaragtay nolosha insaanka